sanadkii 1979 ayay ahayd markii koox hubaysan ay qabsatay oo la wareegtay dhismaha xaramka barakaysan ee Makka al-Mukarrama. kooxda uu horkacay ninkii lagu magacaabi jiray Juhaymaan bin Maxamed. barnaamijkan xogta dahsoona waxaynu daha kaga qaadi doonaa kooxdaasi cidda ay ahaayeen iyo ujeedooyinka ay rumaysnaayeen. Juhaymaan bin Maxamed bin Zeef al-Utaybi waxa uu dhashay 16 Sebtembar sanadkii 1936 waxaana uu bartay cilmiga falsafada islaamiga oo uu kaga qalin jabiyay jaamacadda Makka al-Mukarrama. waxaana uu horkacay koox raga oo hubaysan oo uu ka mid ahaa nin naftiisa ugu yeedhay inuu yahay mahdiga la sugayay. magaciisa caadiga ahina ahaa Maxamed bin Cabdallah al-Qaxdaani. Juhaymaan waxa uu goor hore oo subaxnimo istaagay mambarka xaramka isagoo ka dalbaday dadkii salaada subax tukaday inay adeecaan mahdigii aakhiru sabanka soo baxayay, waana qabsashadii socotay muddada 15 maalmood ahayd ee uu gacanta ku hayay xaramka barakaysan. Juhaymaan iyo Maxamed al-Qaxdaani waxay isku barteen magaalada Madiina al-Munawwara, waxaana ay isu arkayeen inay yihiin laba ruux oo isku fikrada aragtidooduna isu dhowdahay. kadib aadaankii salaada subax ee 20 bishii November 1979 waxaa xaramka soo galay koox dad ah oo sita naxashada meydka lagu qaado oo been abuura, kuwaas oo ku qanciyay askartii ilaalada ahayd inay sitaan meydad ay doonayaan in loogu tukado. gudaha markii ay galeen waxa ay naxashadii kala soo baxeen qoryaha boobayaasha fudud ee sida darandooriga u dhaca iyo bambooyinka gacanta laga tuuro, waxaana ay khudbad la istaageen mambarka iyagoo ka dalbanaya muslimiinta xaramka ku jirtay xilliga inay iyaga adeecaan. cid kasta oo go'aankooda ka hortimaadana waxaa la faray in rasaasooda lagaga qaado. wadahadallo ay la galeen xukuumadda Sacuudiga waxaa ka dhashay in 4 maalmood ka bacdi xaramka laga soo daayay haweenkii iyo carruurtii ka mid ahaa dadkii ay kooxdani ku qabsatay gudaha xaramka barakaysan ee Makka al-Mukarrama. xukuumadda boqortooyada Sacuudigu waxay culimadoodii xilligaa ka heleen fadwo diiniya oo u ogolaanaysa inay rasaas ku ridi karaan kooxda hubaysan. intaa ka bacdina ciidamo Faransiis ah oo ah kuwa sida gaarka u tababaran ayaa soo gaaray dalka Sacuudiga, kuwaasoo dejiyay kaartadii lagu geli lahaa xaramka ee lagu xoreyn lahaa. waxaana iyagoo kaashanaya cutubyo ka tirsan booliska Sacuudiga ay 2 toddobaad ka bacdi soo afjareen haysashadii kooxdii hubaysnayd, waxaana si buuxda gacanta loogu dhigay xaaladda guud iyadoo dadkii muddada lagu haystay xaramkana la soo samata bixiyay. inkastoo ay haddaba haysashadii kooxdaasi haysatay xaramka iyo howlgalkii lagaga xaroonayaba ay galaafatay nolosha in badan oo rayid iyo ciidan bay isugu jira, haddana hogaamiyihii kooxda Juhaymaan bin Maxamed oo nolol lagu qabtay iyo 61 xubnood oo raggiisii ka mid ahaa waxaa lagu xukumay daldalaad, taasoo lagu fuliyey 9 bishii January sanadkii 1980.